Joojinta cusub ayaa si rasmi ah uga dhaqan gashay dalka Suuriya. Xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka John Kerry waxa uu sheegay in hadda ay suuragal tahay in ay nabad ka dhaqan gasho Suuriya oo midowda. John Kerry waxa uu hoosta ka xariiqay in carqaladaynta lagu sameynayo xabad joojinta ay jiri karto saacadaha soo socda ama maalmaha soo socda. Waxa uu dhammaan dhinacyada qaybta ka ah ugu baaqay inay u hoggaansamaan qodobada ku xusan heshiiskan. waxa uu sheegay in Ruushku uu ballan qaaday in madaxweyne Assad uu xushmaynayo xabad joojinta. Dadka u ololeeya nabadda Suuriya waxay sheegayaan in heshiiska cusub uu ka dhaqan galay inta badan degmooyinka lagu dagaalamayay. Qof degan magaalada go'doonsan ee Xalab ayaa warbaahinta u sheegay duqeynta sida roobka u dii jirtay inay istaagtay. Waxa uu intaasi sii raaciyay inaynan jirin diyaarado hawada dul heehaabaya. Heshiiska xabad joojinta waxa uu socon doonaa 7 maalmood. وعبد الرحمن جامعي ريا TV